بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي ما أنت حبتي يا قرصعة سأجدان ومال لقرحيي أو قرح غير عادي لقد جاي حبتي نواتاس قريه نواكواس marka waa meel maasha Allah tabaaraka Allah. Waa magaalada London. Soomaali badan baa waxay ku fikirayaan inay meeshan intay iska imaadaan sidaan ugu dalxiisaan, laakiin runta jirta baan idin sheegayaa walaalayaal. Sarahaas waxa waaye dadka tahriibka ku imaanayo hala socdaan. Sarahaas aad u jeedaan waxay ka kooban yihiin dhalo lagu qurxiyey bulkeeti iyo bir. Marka inta u soo tahriibtid dhalooyinkaas waxaa ka dambeeyo bulkeeti iyo bir, saas oo la socdaan. Haddana sharciyadii wadamada galbeedka waa la bedelay, sanad walba sanadka ka dambeeyo adeeg baa laga dhigay. Hadeerna waxaa la bilaabay in la celiyaba qofkii meeshaan imaado Ingiriiska oo la geeyo Rwanda. Marka haddaa Soomaaliya joogtid, Rwanda ma aragtay si dhaqso ay ku tagi kartaa. inta imaan lahayd waxa kaaga roor adigoo Rwanda iska aadid intii lagu celin lahaa. Hadeer ayaan hore mudaharaad waanu sameeynay oo aan u doodeynay dadka qaxootiga la celinayo, sababtoo ah Ingiriiska waxay bilaabeen waxa la yiraahdo double standard. Qaxootiga Ukraine inay u ogolaadaan wadanka inay joogaan, qaxootiga wadamada kale oo dhanna in lagu celiyo Rwanda. Marka taas baynu mudaharaad ka sameeynay oo xoog leh oo dad badan oo wadanka u dhashay ay nala imaadeen. Marka waa sidaas in loola socdaa. Meeshaan ma aha hadeer waqtigii loo soo tahriibayay, bal waxa waaye waqtigii aan Soomaaliya dhisi lahayn, aan horumarin lahayn, annaka joognana aan soo laaban lahayn sida ugu dhaqsida badan. marka intaas idinla wadaagaya walaalayaal. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.